بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمان ومديدة ميل كستا جوجتان أي هوب دمانتين إنا لدنتين حافمات قبطان ساعات كستا سيسن كستا أيدين تهين الله سبحانه وتعالى يدنكو حفتيو كسو دوادة channel كيغوانو نادية ولا لها عصب كسو بيره ولا لها يجي هوري دمانتي ومهاتنتين سو دوادة جزاك الله خير channel كيني welcome بعدين إن شاء الله بإذن الله كريم محاربة مانتينا كهالدو arrin aynan badanaa ka hadlin haddaynu nahay ummaddeena soomaaliyeed taas oo caafimaadkeena oo sometimes waxaa dhacda ama inta badan dadkeena soomaalida dhakhtarada ma tagno even inagu xataa qurbo joogno inteena badan kuwa wadankii jooga iska badaa kuweena xataa qurbo jooga qofku ilaa uu sakaraad noqdo ama last stage maray ayuu dhakhtar taga isagoo dhakhtaradii aynu firi inoo tahay wax kasta aynu ognahay wadankiina waad aragteen maalin walba qof baa la oranaya waa sakaraad oo dal iyagana sidoo kale marka insha allah bidmillaahi kariim waxaan rabaa maanta inaan naftiina iyo nafteydaba warning siiyo insha allah inaynu caafimaadkeena baadhno marka waxaan ku horumaraya marka ugu horeysa waxaa jirta this year in layga qabtay naaska korkiisa meesha ah oo ah lafta naaska tissuegiisa meesha hilibka naaska markaan saa u qabto way damqanaysay hoos dhiib gacantana waa gacanta midigna xoogaa markaas wax ku sameeyo kale soo ay waxaan dareemay xanuun aanan lahaan jirin inkastoo xanuun sakaraad oo aan waxba ku qabsan waayo aan ahayn laakiin waan dareemayay marka waxa dhacday barkaasna waxa ahayd markii aan this year markaan ku noqday gymka bay ahayd marka xanuunkii markaan dareemay waxaan u tagay dhakhtarka marka maalmihii hore waan ignore gareynay waxaan isla oo maybe gymka berihi weeyaan iyo waxaasad ku cusubto dib ugu noqoto loontii maadan samayn haddana markaan ka xanuunka inuu weli sii jiro oo ay damqanaysa meesha special markaan taabto way damqanaysa like deep oo kale just dhakhtarkayga u tago waa cabsaday dhakhtarkii baan u sheegay waxaa lay diray mammogram marka mammogramku waa tan naasaha dumarka laga saaro oo sheegaysa haddii wax ku jiraan iyo wax kale okay marka mammogramkii markaan tagay xoogaa bay qaadatay appointmentigii waa tegay dad areada aan rabay xoogaa waxaa meeshayd ahayd xoogaa waqtigeedu ballama dhow ma ahayn anyway waan sugay ballantii markaan tegay dhakhtarkii oo dhakhtarkii maalintii ay intaan dhakhtarku la kulmin marka waa kan qof medical assistant ama nursing ay kula hadasho marka ay timay visit gareynaysa waa u sheegay waxaan ku halkaas waxay ku tiri maxaan ku hayay waan u sheegay markaas haye meeshii bay taabatay way eegtay waxay ku tiri okay I don't think inaad maanta marka mammogram lagu saarayo dhakhtarkan la soo hadlay waxaan u maleynayaa laakiin in lagu saarayo ultrasound 3D waxay yiraahdaan oo mammogramka waa can do this is more advances okay markaas waxaan ku uri no please intaasoo dhan baan sugayay I need to know waxay ahayeen markaas igu tiri I don't think maadaama aad leedahay meel baa i damqanaysa I don't think inaa lagu saarayo waxaad u baahan tahay ultrasound dhakhtarkan laakiin la soo hadlayaba itus dhakhtarkii bay u tagtay dhakhtarkii sidoo kale wuxuu ku yiri yes she has to make another appointment kale inay dhakhtarkeeda ku noqoto marka qaybtan radiology-ga waa inaad dhakhtarkaagu marka ultrasound waxa lagu saaray waa inuu dhakhtarkaagu specialty ku soo diro aniga waaban xanaaqay way igu soo noqotay waxay tiri no ma ku saarayno mammogram dhakhtarkaagii ku noqo inuu order cusub ku soo siiyo weeyo qaybtan 3D-ga lagu saarayo ultrasound-ka oo dhakhtarku specialty okay aniga wallahi waan ka xumaaday runtii because I needed waxaan rabaa inaan xilliga ogaado waxay dhakhtarkii baan ku noqday right away isla markiiba waan tagay iskumay kala fogeen warqadii baa laysoo siiyey xataa maan sugin inay u tiraan gacantan kaga soo qaatay isla meeshan kusoo noqday appointmentigii kale ayaa 2 bilood iyadana sugayay almost 7 weeks and half almost 2 bilood oo wax yar dhiman ayaama dhiman anyway dhakhtarkii waan tegay anuu xoogaa yara cabcabsanay le beentu waa xaaraane inkastoo bini-aadmi baynu nahay waan tegay dhakhtarkii markaan tegay gabadhii way iga qaaday wixii marka maasha allah gabadh aad u fiican bay gulada waxay ku tiri doon ha warwarin waxaa laga yaabaa inaanay waxba ahayn dadku badanaa is okay adigu way iga qaaday dhakhtarkii uu yimi intaanu dhakhtarku marka inuu dhakhtarku wixii uu fiirinayo oo wax ka qorqorayo loo they have to report inay qoraan meel halka kanaa la geliyo qol yar baan fadhiistay qolkii markaan ku jiro meeshaydii iska fadhiyo waxaan maqlay hal mar qayla waba qof qayla dheer qayliyay alla waa naxay subxaan allah cabaarka dambe waan iska gartay waxaan ku uri qof baa dhakhtarkii u sheegay inuu kansar qabo cabaarka dambena maamo cadaan ay soo agmarto gabadhii nursing kula socoto oo meeshii qol yar halkan gasho ku labisanaysay marka waxaa maamadaasi say u qaylisay ilaah baan ku dhaartay meeshay joogtay meeshu inkastay isku area ahayd laakiin
you can tell qofka bini'aadmiga dhibaatada marka laynagu yirahdo ilaahu inagu keeno wixii hayana ka qaad kelmadda kansar markaynu maqalno dadkana qalbigaa jaba waxaa dhacday markaa waan tagay dhakhtar aniga waan nahay xataa markaa subxaan allah wasleega oo ilaahay oo rabbiga waxaad keentid baadaa leh laakiin rabbiga naga najay waan tagay dhakhtarkii baa ii yimi okay wuu itus buu yiri meeshii haddana waan taabtay wuu ii sheegay wuxuu igu yiri wax allaale wax aan kugu aragnay male haddii waa fiirnay tiishaaga hilibkii tiishowgii naasahaagii everything waliba wuxuu yiri meeshaad ka cabanaysid waxaan sii saaray gaar wuu i tusay wuxuu yiri wax aad qabtid male oo waxaan ku yiri markaa alxamdulillah good news waaba tahay laakiin waxay tahay xanuunku marka wuxuu igu yiri waxay u badan tahay waa maskalka muruqa hoose ba maybe ma I don't know ma jimkii birihiiba ma wax kala wuxuu yiri waa diib waxa weeyaan lafta muruqa wayna iska bogsan doontaa laakiin waxba ha shakiin xoogaan oo naftii ka soo baxday baan soo noqday alxamdulillah ilaahay qadartii xanuunkii muddo kadib wax yar kadib wuu iska dhamaaday marka ilaahay alxamdulillah xanuunka wuu iska tegay I don't have any xanuun kale hadda ma qabo marka waxaan rabay inaan idhaahdo walaalayaal dumarkeena iyo even raggeenaba inagu the last minute baynu tagnaa qofkana markuu xanuunsanayo xanuunku hal mar inaguma soo boodo xanuunku markaynu xanuunsanayno marka hadda kaba soo qaad kale madaxu hadduu ku xanuunay migraine kale haddaad leedahay tension headache ood lagada waad ogtahay madaxu inuu ku xanuuno laakiin sometimes haddaad aragtid wax extra ah oon ku hayn madaxu like wow maalin dhan aad kici kari weydo oo the extreme ah ogow there something kugu keenaya waxay doonta baa noqotay anything else laakiin ogow daad xanuunka kugu soo kordhay waa xanuun dhayalsan jidhkeenuna marka ugu horeysa xanuun uu inagu dhacaya ama cudur anything ay noqoto signal buu ina siiyaa warning buu inoo soo diraa waxaa laga yaabaa waxaad isku aragtaa adigoo yaro daalan waan daalan sida ahaan jirin waad yaro daalanaysaa mise wiig kadib laba wiig kadib xoogaa daalkii kugu soo badanaya madax xanuun yar marka jidhkeenu waxay kuu soo dirayaan wuxuu warning buu ku siinayaa digniin wuxuu kuleeyahay hey something baa iga khaldanaya ogow marka laakiin xanuunku hal mar badan ay naguma soo boodo qaybta bila symptomska aan lahayn mahaane marka insha allah bidmillaahi karin waa inaynu ogaano xanuunku markuu inagu soo markaynu aragno anything oo inagu cusub hadday noqoto madax xanuun hadday noqoto lugto dhinac yara hadday noqoto wax yar anything because waxay noqoto ha ahaatee xanuunku always wuxuuna siiyaa warning buu inoo soo siiyaa wuxuu inoo soo siiyaa yani waxa digniin marka qofka waynu sahalsanaa ama waynu ignore garaynaa kabacdi markay tabcaan aynu noqono aynu meel aynu kici kar weyna baynu dhakhtar tagnaa inagoo sometimes last stageka ku jirna qofkana ilaahay subxaana watacaala wuxuu u keenay kuma dhaafayaan laakiin waxa marka kaja lagu sameeyo early stage marka ugu horeyso lagu ogaado waa lagu qabanaya waxaa jirta gabadhaan isla shaqeyno maamaan isla shaqeyno waxay iga sheekaysay beri dhexdaas hadda xataa 3-4 weeks ka hore baan weydiinayay naag best friendkeeda waxay tagtay dhakhtarkii markay tagtay dhakhtarkii wuxuu ku yiri xanuun ba iska horto maybe waa ignore garaysa dhakhtarkii markay tagtay waxaa laga soo helay cancer stage 3 maraya dhakhtarkii wuxuu ku yiri 3 days haddaad sugi lahayd dhiiggay meel kasoo raaci lahaa waxay noqotay inay dee ilaa alxamdulillah hadda 3 week ka hor mise 4 weeks ka hor baan weydiinay kulaha hoos yarfara waxay ku tiri maasha allah way fiican tahay aad u fiican tahay dhakhtar bay tagtay special sale bay shaqtay waa lala dadaalay inaga hadda markaa dhibaatada ina haysato waxay tahay inkastoo qadarta alla ay tahay laakiin waxaynu sugnaa the last minute-kii markaynu tagnona inaga dadkeena badanaa qurbo xataa haddaynu joogno qof shaqeeyo oo kaadhkiisa caafimaadka mahaane dadkeena kaadhar fiican oo aynu ilaa power weyn laleynama siiyo marka waxay noqonaysaa inaynu meelo yarar ku leexleexno waxay noqonaysaa inuu qofkii isagoo sakaraada dhakhtarkii tago leeyahay oo already meel xun baad gaadhay dadka madowga ana aad ayay ugu badantay markay noqoto breast cancer hadda breast cancer oo kale kansarka ku dhaca naasaha dadku hadeer technologyga la gaadhay qofkaa tiisu dhammaan aad statistically aad ayuu hayarkiisu u badan yahay in laga caafimaado ama laga daweeyo laakiin badanaa dadka madowga ah inaga iyo dadka madowga oo dhan dhakhtarada ma taqano ila madowbaynu nanahay madowgu waa dadka ugu badan oo dhinta waa dadka ugu badan oo dhinta hadda habeen dhawato waxaan daawanayay documentary laga soo sameeyey umusha
ma ogtahay dadka madowga ah gabdhaha madowga ah waxay u dhintaan iyo isbaanishka ay nagu soo xiga waxay u dhintaan maxaa kaa galay xanuun yar oo la daweyn karayo oo hordhac ah bay dhakhtaradu ignore gareeyeen marka maanta waxaan idin leeyahay walaalayaalow even xataa raggeena colon cancer baa jira xanuuno badan baa jira hala tago dhakhtar dad badan baan garanaya oo intaa xanuunsanaya aan odhan jiray waa dhakhtar tago say u ignore garanayeen markii ugu dambeysay liver cancer waxyaabo badan oo xunxun oo last meel xun gaarsiiye lagu soo sheegay qadarta allah haya laakiin aynu isdaweyno aynu dhakhtarada tagno wax yar haddaad isku artid ilmahaaga wax yar haddaad ku artid naftaada wax yar haddaad ku artid familigaaga dhakhtar tag mid kalena aan idiin sheego dhakhtaradu you have to inaad adigu advocate naftaada u noqotid dhakhtaradu sometimes dismiss bay kugu sameeyaan waxay ku odhanayaan no waxba ma qabtid oo next time igu soo daqo ha ka yeelin u sheeg xanuunka aad qabtid haddaad rabtid mammogram in lagu saaro MRI in lagu saaro haddaad ogtahay uu xanuunkaaga u adeegtahay xooga saar waxaad tirahdaa no dhakhtar I know hedda kan hayaa madax xanuunkan haya madax xanuun waalan weeyaan iidir MRI CT iidir kan iidir adigu naftaada advocate u noqo dhakhtaradu qayb baa dismiss kugu sameynaya marka ha ka yeelin ilmahaaga sidoo kale haddaad ogtahay cunugaagu inuu bildan iyo wiigaga dhan sanka wax ka socdeen dhakhtarka u sheeg haddaa artay hargab kusoo noqnoqonaya haddaa artay dhegaho infectiona ka ogol waxaad tiraa dhakhtar waan ogahay I need you inaad specialty ii dirtid inaad specialty ilmaha igu dirtid inaa aniga ii dirtid baryahan oo dhan dhabarkaygu tabcaan buu marka we have to inaynu advocate nafteena u noqono oo nafteena aynu nirahno this is I know inuu inahayo marka walaalayaal wiilasheenana waxaa leeyahay fadlan even hadda way isbedeshan agekii loogu talagalay colon cancerka xanuuno badan baa jira colon cancer ha layska eego anything oo xanuuna wax kastay noqoto jirkeena every year meel kasta aad joogtid isku sameey visitka check up isku sameey follow up dhakhtarkaaga raac every year iska qaad dhiigaga dhan oo jirkaaga dhan iska qaad dhakhtarkaaga ku noqnoqo inagu waxaa ma sameyno dawooyinkii laynoo soo qoray ma qaadanayno mid kale aan raba inaa idiin sheegano waxa weye walaalayaalow oo anigayga xataa hadda laygu soo sheegay waxaa laygu soo sheegay rabadaantii anigoo alxamdulilah last yearkii oo dhan waxaan sameynaya keto diet waxa layirahdo carbohydrate-ko dhan waan gooyay iyo macaanka rabadaantii hadda maasha allah habeen walba bariis iyo baasta iyo fruud iyo adduunyo aan weliga cuni jirin ma rabadaantii ka dhargay maasha allah dhakhtarkii markaan aaday waxaa laygu yiri waxaan ahay pre-diabetic xadkii diabetic aan saaranahay baa laygu yiri markii rabadaantu dhamaatay dhakhtar ballanan oo iskale baan iska tagay dhiigagaa layga qaaday wuxuu dhakhtarkayga igu yiri weligay cholesterol layguma sheegin weligay layguma sheegin anna waan ogahay waan macaan jecelay bishaas oo dhan malaha waxaan cunayo dhan macaan iyo bay hayeen calaa kulli xaal waxay noqotay inaan anigii xataa naxo pre-diabetics nad wax sahlan maaha laakiin waa waxaad iska dayn kartid waxay noqotay inaan kiitadaydii ku noqdo kiita diet wax la yirahdo oo waxaad goynaysa all carbohydrate oo dhan bariis baasto roodi macaan aniga biggest problemkaygu waa macaanta waan macaan jecelahay dadka sweetka jecel baan ahay wixii oo dhan baan gooyey sometimes been alla caaya marmar waan jiid garaya laakiin completely waa gooyey ma iga rumaysanaysaan 6 weeks markuu dhakhtarku igu soo sheegay oo igu yiri pre-diabetic baa tahay pre-diabetic waxa weye diabetic inuu kugu dhaco sonkor inay kugu dhaco baad qarka u saaran tahay weli kugumay dhicin laakiin qarkaad u saaran tahay 6 week kadib baan dhakhtarkii ku noqday markaa macaankii oo dhan waa joojiyey bariis waa joojiyey baasto waa joojiyey haddii alla ku rooyahay roodi oo dhan waa joojiyey canjeelana walba cuni jirin kastaan jeclay wixii daqiiq ku jirto oo dhan iyo macaankii baan joojiyey inkastaan marmar macaanka u qarqarayo starbucks iyo waxaa laakiin waan joojiyey 6 week kadib baan ku noqday sokortayda dhulkay tagtay dhakhtarkii maasha allah wuxuu yiri maxaad sababtay oo sheeg waxaan ku kiitadaydii baan ku noqday soo sugarka iyo carbohydrate-kii oo dhan baan gooyey maasha allah macaantaydii hoos bay u noqotay alxamdulilah hadda normalka ayaan ahay caadiga xataa normalkaygu very good ah marka waxaan kaloo idin leeyahay walaalayaal cuntada aynu cunno oo dhan haddaynu soomaali nahay waxa weeyaan waa sokor baa ku jirta berigan kiitadan bilaabay daayeedka waxyaabihii aan ogaaday oo dhan everything aynu cunno waxaa ku jirta sokor muus soomaaliya oo dhan waynu jecelnahay waxaan xasuustaa muuska anigoo 3 muusa maalintii cuna mid cuntaadaan ku cunaa sometimes xataa snack markaan dabcan gaajoodo xabad muusaan cuni jiray you know 1 banana waxaa ku jira 27 carbohydrate grama waa qofka dhan maalinta dhan inta loogu ogol yahay barigaas waan muraara dilaacay orange juice-gaan cabi jiray waa joojiyey inta sokor ku jirtaan ogaaday aroortii waxaan odhan jiray shaqadayda waa laga yaqaanay
luntaa bay qalashay haddaanan orange juice cabin glass intaan dhalliga orange juice baan cabi jiray markaan ogaaday qalbigu wuu ijka kareeyay inta sokor ku jirta marka inagu baastada aynu cuno bariiska all waxa aynu cuno oo dhan daqiiqda canjeelada aynu cuno sabaayada aynu cuno roodhiga baastada bariiska carbohydrate baa ku jira jirkeena markay galaan glucose sokor bay isu bedelaan at least hilibkoo kale iyo faad bay noqdaan waxyaabaha subag oo kale jirkeena markay galaan subag bay isu bedelaan laakiin waxa carbohydrate ku jiro oo dhan waxay converted ku noqdaan inay sonkor noqdaan guryaheenana wax kale lagama cuno hadda caruuraheenii yaryaraa caruur kasta waxaa lagu leeyahay ilmihii yaraa sonkor macaan baa ku dhacday marka insha allah tanna waa iga digniin fadlan ilmaheenana aynu ilaalino macaanka faraha badan caruurta juuska caruurtii la siinayo ugo waxa ku jira akhri gadaashiisa inagu cuntadaynu cunayno bariis iyo baasto ma dayn karniyo laxoox laakiin one day yaryarey qudrad badan cun dhinac yaryaro qudrada ka cun sababtoo hadda soomaalidii haddaynu nahay aad iyo aad ayaa cholesterol iyo diabetic farkul inoogu hayay even xataa waxaa iga naxiya caruurihii yaryaraa aad ayaa xanuunkaas ugu badan yahay wadankeeni sideenoo kale dadkee soomaaliya qof kasta oo xanuunsada waxaa laga helayaa liver cancer wax kalena maaha inkastoo ilaahay kansarka uu keenay waa jonis xumaaday waxaweeye hebataydkii inagu xumaaday waa subagii markaan bilaabay kiitada tan waxaan qaraacmay aan ogaaday aan xasuustay markaynu yaryarayn africa aynu joogna ama kenya meelaha even xataa maraykan dad badan baan arkay iyo qurbaha weli canjeeladii cuno canjeelada subaga sokorta waxaynu ku dari jireen aniga waan jecelahay canjeelo laakiin wantin aan kaga goy waxa weeyaan canjeeladii haddaadan sokor badan iyo subag ku darin dhadhan ma yeelanayso marka walaalayaal waxaan idinku waaninayaa meel kastoo aynu joogno inaynu caafimaadkeena ka shaqeyno weeyaan inaynu dadaalno weeyaan waxaynuna muhiim ah qofka bini'aadmiga wax kale oo alla siiyey wax kastoo alla siiyey waa nimcada laakiin the highest nimco allana siiyo iyo waxa weeye caafimaadka haddii aadan caafimaad qabin waxba ma ka samaysan kartid haddii aadan caafimaad qabin caruur ma korsan kartid nin iyo naag lama qof sawjkaaga ama sawjadaada lama dhiil garan kartid dee waxba ma qabsan ma shaqaysan kartid marka alla waxyaabaha uuna siiyo the giftiga highest gift waxa weeye caafimaadkeena ilaahayna jirkeenuna ammaano inagu yahay nafteenu ammaana inagu tahay wax kasta oo allah ina siiyo nafteena inaynu caafimaadiyno weeyaan cuntooyinka aynu cunaynana inaynu iska ilaalino weeyaan oo aynu cuno cunto caafimaada inagu waxaynu cuno dhan wax weeyaan kind of xanuuno inoo wada keenaan marka insha allah bismillaahi karim aynu minute allah ka dhiga aynu socono banaanka aadno soo lugayno haddaynaan gym iyo exercise samayn karin socodku wax caafimaad qaba exerciseku waa fiican yahay cuntadu waa fiican tahay marka insha allah bismillaahi karim aynu caafimaadkeena ku dadaalno dumarow haddaynu gabdho tihayna walaalo fadlan mama garan naasahaaga soo saar dhakhtarka tag la soco every year check ups kusoo samey sidoo kale ragga dhammaan inaga dhan laakiin special gabdhaheenu jeegareeya mama garan naasaheena marka kalta kale oo dhan marka aad qubaysanaysid xataa always samey because how many people ayaan arkay oo igu yiri markaan qubaysanayna saasaan ku ogaanay naasa kansar nagaga jiro waxaad dareemaysaa markaad naaskaaga taabatid ood qubaysanaysid special markaad qubaysanaysid taabo tuutuuji fiiri in wax buuran iyo wax kuusan iyo anything oo abnormal aad aragtid sideedaba kansarku waa abnormal waa wax aan normal ahayn marka waxaad dareemaysaa fin yar ama laam yar wax yaro markaa taabatid warwareegaya marka fadlan gabdhow naasihiina taabta markaa qubaysanaysaan gare haddaad wax abnormal oo waxaan caadi ahayn aad isku aragtay dhakhtarka aad laakiin biyor adiga noqo dhakhtarkii naftaada ragga sidoo kale insha allah bismillaahi karin aynu is eegno aynu caafimaadkeena ku dadaalno wadamo meel kastaynu even wadankii haddaynu joogno markaad aragtid inaad jiran tahay ogow there is a reason xanuunkan madax xanuunkan faraha badani sabab buu kuu hayaa caloosha faraha badani sabab bay kuu haysaa shuban badan hadduu ku hayo reason baa jira dhabarkii hadduu out of the blue aad aragtid dhabarkii iska kaxuno aad kici kari weyday sidoo kale haddaad aragtid adigoo lug yar ka heetinaya anything wax kasta way nagu dhici kara haddaad aragtid wax aadan isku ogaan jirin ha yaraad xanuunku hadduu doono dhakhtar aad isfiiri marka insha allah bismillaahi karin aynu isdhiiri gelino aynu caafimaadkeena ka shaqeyno aynu cunto healthiya cunno aynu macaanka faraha badan aynu guryaha dhiganayna walaalayaal aynu dayno caruuraha yaryar oo chocolate iyo sokorta iyo macaanka iyo everything guryaha u yaalaan juqyo jaqta caruuraheena oo dhan hadda waxaa haya diabetica marka insha allah bismillaahi karin aynu dadaalno caafimaadkeena aynu ku dadaalno insha allah bismillaahi karin
ilaahay waxaan idin inooga rajaynaya meel kastaynu joognaba caafimaad inuu ina siiyo inaga dhigo kuwii alla wanaagiyo sharaf siiyo maalinta qiyaamahana imtixaanka u sahlo jannadii fardoosana inoogu bahalkay marka insha allah bidmillaahi kariim waa iga waano insha allah nafteyda iyo naftiinaba hala dadaalo dhakhtar hala aado naftaadana halagu dadaalo hala iska warhayo insha allah until next time khayr ayaa idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu